madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo habeennimadii xalay soo gaaray gudaha magaalada Burco ayaa maanta ka qayb galay munaasabad siyaasad loo soo agaasimay isla marhaantaasna xariga lagaga jareeyay macraj cusub oo loogu talagalay gowraca xoolaha nool oo laga hirgeliyay xaafadda October ee magaalada Burco. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada gobolka Togdheer, cuqaal siyaasiyiin iyo waxgarad u dhashay gobolka Togdheer, ururada bulshada, kuwa hidiya dhaqanka, kuwa ciyaaraha qalabagadiska oo ay wadatay hay'adda wadaniga Hafayoko. mas'uuliyiinta gobolka Togdheer oo ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Togdheer injineer Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji, duqa degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad. ayaa goorayba waxaa munaasabadan hadal kooban ka soo jeediyay duqa degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad oo ku xildhaaday waxqabadka dawladda hoose isla marhaantaana sheegay inay mar walba ka go'an tahay garabgelinta xukuumadda Soomaaliland uu garwadada ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo. degmahan soo dhaweynayaan madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa sheegayna inay hirgelinta mashruucan ay maalgelisay waddankaasi Ingiriiska isla marhaantaasna ay hirgelinaysay dhisme hay'adda FAO ay mahad gaar ah u celinayaan waftiga ka socda isla marhaantaana ku sugan munaasabadan. waxaana hadalladii maayirka ka mid ahaa wafdiga karaamada iyo sharafta inaga mudan haddii aynu nahay reer Burco ama reer Togdheer ee maanta halkan inoogu martida ah ee uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland cafwan iyo dhammaan wasaaradda la socota. wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye oo isaguna munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa tilmaamay inay xukuumadda ka go'an tahay horumarinta qaybaha kala gedisan ee bulshada isla marhaantaana sheegay inay mar walba garab istaagayaan wasaaradda xanaanada xoolaha taas ay ka hirgelinayaan caafimaad helidda xanaanaynta xoolaha oo ay sheegeen inay muhiim u tahay bulshada reer Soomaaliland. wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Faarax Cilmi Geedowle iyo wasiir dawlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Muuse Abees oo iyaguna si wada jira munaasabadaasi hadal kooban uga soo jeediyay ayaa garab istaagay xukuumadda sheegay inay mar walba ka go'an tahay xukuumadda Soomaaliland horumarinta iyo keenitaanka mashaariic ku horumaraya dalkan Soomaaliland. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaahir oo isaguna munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa tilmaamay inay habboon tahay xanaanaynta xoolaha nool isla marhaantaasna ay xanaanaynta xoolaha ku nool yihiin bulshada reer Soomaaliland. intaas kadib madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo waftigiisu waxay si wada jir xariga uga jareen macrajkan cusub ee gowricitaanka xoolaha nool iyadoona ay gudaha u sii galeen isla marhaantaasna ay dheedheeyeen qaabka casriga ee loo dhisay macrajkan. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay neefkeela loo qalaya habka casriga iyadoo la sheegay in dhiigga ka baxa xoolahana lagu samayn doono koronto dhalis isla marhaantaana wax u tara bulshada ku dhaqan gobolkan Togdheer. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo waftigiisu waxay sidoo kale dhagax dhigeen dhismo cusub oo lagu kordhiyay saribada gaha oo ka tirsan sarwadaha waaweyn ee magaalada Burco oo ay hirgelisay dawladda hoose magaalada Burco. Cabdiraxmaan Saylici iyo waftigiisan oo ay ku jireen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Silaayo ayaa u baxay deegaanka Aroori oo ay dhagax dhigayeen seero cusub oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha nool. waxaana halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaahir oo cali furno qaybtii dawladdu ay maalgelisay ee ahayd in dhismayaasha la dayactiro iyo intii 10 kiiloomitir oo horeeya ee imka siligan aan garab joogno ama deerkii lagu wareejinayay meesha lagu ilaalinayo maanta xoolaha inaan maanta dhagax dhigno aad iyo runtii u faraxsanahay waana himilada iyada ka dawlad ahaan in adeegyada la xoojiyo aad bay ugu mahadsan yihiin wasiirka iyo hay'adaha ka howlgalana aad bay ugu mahadsan yihiin. waana markii koowaad saad la socotaan in mashaariicaha waaweyn ee sida dhismayaasha xafiisyada dawladda ama maanta la gelinayo xoolaha la gelinayo ama caafimaadka la gelinayo in budgetka dawladda ay ka mid noqoto. taas waa ta keentay isbeddelka budgetka ka bilaabmay 2010 runtii aan ugu dhibinay $50 milyan maanta kan ku shaqeynaa yahay $150 milyan. isbeddelka inta ay 3 sano gudahood wax lagu sameeyay in $75 milyan ay Soomaaliland xukuumadda ay gaarsiiso iyadoo aan qorsheyna sanad soo socdana in $150 milyan budget ku noqdo. marka 4 sano dawladdu jirto waxay noqon doontaa $100 milyan inay 4 jeer laab ay isbedesho budgetka Soomaaliland. qiimaha inta la isbedelay lacagtaas waxay galaysaa ummadda Soomaaliland bay galaysaa shaqaalaha bay galaysaa lagu daryeelaya waxay galaysaa mashaariic horumarineed oo haddana si dadban dhaqaalihii dalka u galayo. taas waa ta keentay in dhaqaalihii dalku runtii kor u kaco
caalamkan lama arkin wax boqolkiiba boqol mar kaliya miisaaniyad ama mishahar kor u kaca dadaalkeena la nimidnay waa mid ay maartay ummadda tanay halkay hay'adaha ama United Nations ka FAO iyo NGO loo dhiibi lahaa lacagta iyo dhaqaalaha loo dhiibi maayo NGO marimayse toos dawladda dhexe iyo maraysaa iyadoo ay hawsheeda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheyntu ka madax yihiin iyo kolba wasaaraddii markaa ku shaqaynaysa wasaaradda xanaanada xoolaha contract baa lagu bixin doonaa insha Allah ta'ala waa halkan iyo xiriguusha qool caday madaxweyne ku xigeen sida aad maanta dhagaxa noogu dhigtay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu dhamaato ilaahayna nagu guuleeyo sidaas tacabka alxamdulillaah rabbil caalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waa ballamihii awgalay in laf dhabarta xoolaha dadaalka ugu muhiimsan la siiyo haday noqon lahayd daaqeeda naaxinteeda cudurka ilaalinteeda intaasi kadib wafdigan horkacaya Cabdiraxmaan Saliici madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiiradu ayaa waxay isugu soo biyashubteen Hotel City Palace magaalada Burco halkaas lagu qabanayay munaasabad qada sharafa iyadoo la filayo waqtiyada soo socdana inuu kulamo la qaato bulshada qaybaheeda kala gadisan ee gobolka Togdheer waa Sakariya Stacy Bulsha TV Burco.